السلام عليكم. waxaad ku soo dhawaataan kanaalka Kaafiye. waxaan maanta qaadan doonaa English conversation of Somali English wada sheekaysa oo aad u xiiso badan ayaan qaadan doonaa insha Allah. inta aan ugu gudgelin sharaxaadda casharka waxaan ka codsanayaa inaad kanaalkan aad subscribe gareyso oo aad ka qayb qaadato sidii 10k uu ku gaari lahaa muuqaalkana aad like gareyso si uu asxaab badan u gaaro. haddaba wada sheekaysigeena ayaan dhex galinaa insha Allah. iyo B baa halkan ku sheekaysanaya. Eba hadalka bilaabay wuxuu leeyahay Who is your favorite teacher? Who is your favorite teacher? Who is your favorite teacher? macallinkaaga aad ugu jeceshahay waa kee? erga favorite waa mid shayga aad ugu jeceshahay ama dookhaaga ah. marka who is your favorite teacher waa kee macallinka aad ugu jeceshahay. I like waxaan jeclahay ama aan ka helaa Mr. Tom. Mr. Tom ayaan ka helaa the most badana. He is my English teacher. isagu waa macallinkayga luqadda Ingiriishka. Is he a foreign teacher? ma macallin ajnabi ahba? erga foreign waa ajnabi. Is he a foreign teacher? ma macallin ajnabi ahba? Yes, ha. He is from the US. He is from waxa uu ka yimid the US. Maraykanka ayuu ka yimiday ama America. What do you like about his lessons? maxaad ku jeceshahay casharadiisa? markaa wuxuu leeyahay I have fallen in love. jacayl ayaaba igula dhacay ama aan u qaaday with his American accent. lahjadiisa Amerikaanka ah ayaanba aad uga helay oo jacayl ayaan u qaaday. I have fallen in love. jacayl ayaa igula dhacay with his American accent. accent waxaa la yidhahdaa lahjada. luqadda Ingiriishka waa American iyo British ayay u kala baxdaa. marka American accent luqadiisa ama lahjadiisa Amerikaanka ah ayaan aad uga helay buu leeyahay. And he always wuxuuna had jeer shows us oo ina tusaa something wax new cusub oo about ku saabsan the world dunida oo outside banaanka ka ah of the textbook bugaagteena ama bugaagta waxyaabaha inoogu qoran. dabcan markii macallimiinta badanaa waxa buug ku qoran oo kaliya ardayda baraan, laakiin macallimiin waxaa jira caalamka kaaga sheekeynaya oo indhaha ku kala furaya. markaabuu su'aal kale weydiinaya wuxuu leeyahay what's he like? siduu u yaalaa ama siduu u eg yahay ama muxuu yahay isagu ama siduu u muuqdaana waa dhihi kartaa. markaabuu leeyahay he is not only knowledgeable. ma ahan kaliya mid aqoonyahan ah oo dhanka aqoonta ku wanaagsan, but laakiin also very friendly. waa qof aad loola saaxiibi karo. He always treat us. wuxuu had jeer noola dhaqmaa. erga treat us waa ula dhaqmid. wuxuu noola dhaqmaa like friends, sida saaxiibo ayuu noola dhaqmaa, not students ee arday camal inoolama dhaqmo. inoo gudbiya page-ka xiga. waa hagaag page-ka xiga isna waxa uu leeyahay what does he usually wear? what does he usually muxuu had jeer wear soo xirtaa when coming to class marka uu imaanayo fasalka? He usually wears wuxuu had jeer xirtaa a grey suit midabka dameeriga ah when he comes marka uu imaanayo to class fasalka. Do you love ma jeceshahay his subject maadadiisa ma jeceshahay? Yes, ha. I enjoy waan ku raaxaystaa English luqadda Ingiriishka a lot in badan. Do students miyay ardayda in your class ee fasalkaaga like him isaga ay jecel yihiin? Yes, ha. all of us dhammaanteen admire him waan u riyaaqsanahay. admire waa u riyaaqid. Do you want ma doonaysaa to be inaad noqoto a teacher macallin like him isagoo kale ah? No, maya. although inkastoo I like him isaga aan jeclahay, my dream riyadaydu is not ma ahan to become inaan noqdo a teacher macallin. I would like waxaan jeclaan lahaa to be inaan noqdo a chef cunno kariye. chef waxaa la yidhahdaa qofka cunno karinta aadka u yaqaano oo soo bartay oo xitaa jaamacad u galay baa waxaa la yidhahdaa chef. waa hagaag page-ka xiga wuxuu weydiinaya haddana su-aashan oo ah have you ever been punished by him? miyuu weligaa ku ciqaabay oo intaad khalad gashay miyuu weligiis uu ku ciqaabay? erga punished waa ciqaab. No, maya. He rarely punishes anyone. wuxuu qofka si mar dhif ah ayuu qofka canantaa.
erga punishes waa ciqaab dabcan marka adiga dadka ama qofka wuxuu ciqaabaa haddii uu khalad ka galo si dhif ah ama marmar ayuu ciqaabaa erga rarely waa wax aan badanaa soo laalaaban oo dhif ah. Do you want ma doonaysaa to see him again mar kale inaad aragto? Of course dabcan he's a great mentor. dabcan waan doonaya buu leeyahay maxaa yeelay he's a great mentor isagu waa hage cajiib ah ama hage khatar ah na waad dhihi kartaa. erga mentor waxaa la yidhahdaa markii macallinku ardayga uu la talinayo oo uu hagayo ayaa waxaa la yidhahdaa mentor oo uuna dhiirigelinayo. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah. waxaan kaa codsanayaa kanalkan inaad subscribe garayso oo aad ka qayb qaadato sidii uu ku gaari lahaa 10k oo subscribers. muuqaalkana aad like garayso. muuqaalka xiga ayaa inoo balan ah inta laga gaarayo sidaas iyo amaano Allah.